midday haddana wadka iga soo horeyni waa joogaa insha Allah sano hore u soo dabaaldegtay oo soo maray dhuliyada 2 sano caad u garanay markii hore waan yaraa calanka Soomaaliland si aad iyo aad ugu diyaar garoobay 18 May calanka kor u qaada kelmadda la ilaha illa Allah inoo alaaliya intii sanadkana waxa jira dad badan oo markii hore mucaarad ahaa oo sanadka ayaan walibana 18 May aad iyo aad u xusaya oo ah kursi ku muxaafid aan oran taasoo dhan bayidin oo taylaa ilaa maanta weyn laga gaadhiyo waa maalin aad iyo aad u ballaaran oo in walibana kaga xanaajin mar reer Telegram way walaal magacaaga Maxamed Saar qof waliba si gaar ugu diyaar garoobaya xuska 18 May maalinka weyn ee nagu soo foodale adigu ahaantaada soo ugu diyaar garooday maxaad ku soo dhaweeyay maxaad kamay waan joogaa hadana wadka iga yimid doolaalo meelka uga yimiday hadana wadka iga soo horeyni waa joogaa insha Allah halkaad uga timi Koroma wandawaa wala magacaaga Asiya wala kamay bal adi ahaan soo ugu diyaar garooday maxaad soo ugu talagashay aslada maalinka ku xus wala horta si fiican baan ugu diyaar garoobay waan soo dhaweynayaa insha Allah si fiican baan dabaaldegi doonaa maalinka la jiro magacaaga saaxiib magacay waxa la yiraahdaa Nuuruddin Cabdisalaan Maxamuud Nuuruddin waxa lagu jiraa xuska 18 May maalinta qaranimada Soomaaliland sidee baad ugu diyaar garowday adi ahaanta anu ahaanteeda waxa si diyaar garoobay bishan soo baabimo si diyaar garoobay bartaa ma taaganay ilaa xilligii intay ka dhamaasoo taagnaanay bartaa waxa leedahay inta ADMga ilaa 18 May inta laga gaarayo heesa calanka la qaadaya calankana wala siinaya masaasa ha bartaasan taagnaana ilaa habeenkii ma ka rooxaynaa habeenkii bad ka rooxda saan soo istaagno salaada casr kolka saa laga soo baxo iyadoo bilaabmay bisha soo bilo ayaa soo istaagnay aad baad mahadsan tahay magacaaga Nasra hatri Nasra Nasra waxa lagu jiraa xuska 18 May oo loo diyaar garoobaya bal shakhsi ahaantaada ama qof ahaantaada gaarka sad ugu diyaar garoobay warbixin yar kooban naga sii أنا شوف أنا وجود ديار قروينا ودبادقنا وان شعلها هرنا وقصو دبادقي إمسا سنة هرب سو دبادقتي وقصو مرة يديني هذا لا بس أنا عادو برنا مركو أروان يرى أنت راح كودينا يا على كوتشي قال كوشر حطي وربحين ركوبنا نقصي صوت كوتشي قال كوشر حطي والله ده أكتر قيمون كلها ياي وأنا عن كيفين مقارسين ياي كوتشي كده حتى نفتي نقول لها سوري وندوي ولا ما حاجة بيد ولا برلي waxa lagu jiraa xuska 18 May maalinta qaranimada Soomaaliland adi ahaan taa maxaad ugu diyaar garoobay saad soo dhaweeyay xusay wallahi horta shucuurtayda lama soo koobi karo 18 May way igu weyn tahay waqtigaas suuqa waxaan soo galay aniga iyo shantayda hablood inaan calamaantii ayaan soo doonay calamadii hadiin calamaantii duruucii toobabkii calanka Soomaaliland si aad iyo aad ugu diyaar garoobay 18 May si aan uga qayb galo munaasabada ciida Soomaaliland 18 May waxa la guuliyo gobonimo waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaan leeyahay jiro joog waxaan leeyahay sanadkiisa Allah nabad qab inagu wada gaarsiyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay 18 May guul Soomaaliland soo wadaysa magacaaga Muxtaar Sax taro waxay nagu soo wajahan xuska 18 May sidaad ugu diyaar garowday adi shakhsi ahaanta bal warbixin kooban naga sii sidaad ugu diyaar garowday xuska 18 May xusaysaa horta maxaan xusay bal mooye maxaad ugu diyaar garowday maxaad ku xusaysaa in qof wax la imanaya saadigi jeeyay calankayga sito diyaar galowgii aan hadda ay bilowtay diyaar galowgina hore u saanay marka calanka farxaysa ha war waxa oo bakinaya ma soo haysa qaranka waa hablahan ruuxda badan ee halka taagan madaga rodow magacaaga أنا شان محمد هاي waxa soo dhow maalinka 18 May maalinta qaranimada Soomaaliland qof waliba si gaar ah u xusayaa adigu maxaad ku soo dhaweynaysaa saad soo xusaysaa ma soo diyaar garowd أنا كان ونسى درجة فرحات
si fiican ma soo dadka qaar waxa la yiri way soo xayaanbe ma u soo xisaadiga maalinka maalinta si fiican ma nagu soo soo dhow la jiray soo dhow wala waan dhawahay aad u maasantahay magacaaga waa magaca Munir Cabdullah waxa soo dhow maalintii qaranimada Soomaaliland ee 18 May waxa filayaa inaad diyaar garowdo ها سيفي عن ما أنت معلق قاليا من إلهي دونا وأنا سنتكردي أفسد ويان dadka waxay u talagaleen yani waxyaabo kala duwan bay ku xusayaan oo isugu soo baxayaan laga talentaagintaada maxaad uga soo baxaysaa maalinka la qof talentiga Suleyman ayaa la yiri astaantay la soo baxay macaa astaantay aan tahay aad baan u jecelahay astaantaydan oo yaashii ay ugu dhintay iga tagay dadka qaar waxa la yiri soo xayaan ma soo haysaa waa isay wax qarnimada ma soo xayaan iminka ma garanayso maalinta saari doontaa way soo badhiga maalinta saari doontaa aad bad maadsan kelimada la ilaha illa anta bismillah inoo alaaliya dacalika kar hanu qaadno cadow bay leenahay cadowgiina indaha cadowguna hayaabo Soomaaliland tan waan jecelahay waan ku dhashay waan ku dhali doonaa insha Allah harajinayna inaynu wadankeen wax ka bedelno insha Allah harajin doonaa inaan ka noqon doono madaxweynaha soo socda mustaqbalka insha Allah taala soo magacaaga Ismaan Ali maalinka idimeyda nagu soo dhoostay 18 May dadka shakhsi oo qof si gaar ugu sii diyaar garoobay adigu say ugu sii diyaar garowday sanahay dalkayga iyo dhulkayga iyo calankayga aad iyo aad baan jecelahay waan u soo haya soo dhow aad iyo aad waan dhawahay magacaaga magacayga waxa la Istiiq Saxardiid Axmed Maxamed sidiiqow calankii Jamhuuriyadda barakeysan baad u weyntahay aad iyo aad waa calankii Jamhuuriyadda barakeysan astaantii qaranka Soomaaliland waxa loo diyaar garoobayaa xuska 18 May oo dadku aad bay u sii diyaar garoobaan bal adi ahaantaada maxaad ku diyaar garooday sideed soo dhaweynaysaa maalinta qaran ee nagu weyn ee soo socota runtii waa maalin qarannimadeena ku weyn oo ah maalinteen xornimadeena la soo noqonay qaranka Soomaaliland oo cagiisa ku istaagay waa maalin aad iyo aad u ballaaran oo inuu walibana kaga xanaajino reer Telegram team Telegram inuu kaga xanaajino kulli wala garan karaa team Telegram team Telegram ma sheegi kartaa mise waa korba uga baxa waxaan kulli waa la iska wada garanayaayo waa nimanka la ilaa qadaadweynta aad bad maasan tahay ciid mubaarak soo dhawo maamo waan dhawahay maamo calankii Jamhuuriyadda Soomaaliland bad ku soo labisatay caawa sida ay muuqataa waxaad noo diyaar garowday xuska 18 May sida caadiga marka waxaad ii sheegtaa maalintaas nagu weyn ee nagu soo socota qof waliba si gaar ah ugu sii diyaar garoobaya adiga maalinkaas waxay la tanaad ku soo labisanaysaa calanka saa ugu soo diyaar garowday waa run waan soo diyaar garoobay maantana waxaan insha Allah aan isleeyahay inta ay ka hadsan tahay 18 May inaan diyaar garoobo ku sii jiro waad sii xusaysaa ilaa inta laga gaarayo intaas oo dhan bay idinota ilaa maanta weyn laga gaarayo dhalinyarada ama dadka badanaa talentka biyaha soo meeriyaha qof talent la soo baxayo qaar suuxa qaar wax kala sameeya bal adiga maxaa gaar oo dadka ka duwan oo ku qorshaysan aniga waxa ii qorshaysan inaan maalintaas 18 May aan afarta habeenimo ka codsi aan u yimaado halkay ciidamadu marayaan oo taageero buuxda u muujiyo Soomaaliland aad iyo aad mahadsantahay maam adiga mudan runtii sanadkana waxa jira dad badan oo markii hore mucaarad ahaa oo sanadka walibana 18 May aad iyo aad u xusaya oo ah kursi ku muxaafid aan oran karo runtii taana waxa leeyahay waxa ka weyn qarannimada Soomaaliland iyo jiritaanka Soomaaliland waayo kursiga iyo 18 May isma khusayaan waa waqtigeena la soo noqonay xornimadeeni iyo jiritaanka qaranka Soomaaliland marka waxaan leeyahay mar kasta iyo waqti kasta amba muxaafid noqono amba mucaarad noqono qaranku weyn hal mid inoo ahaado weeyaan kursigu waa ka gooni waan leeyahay bulshadayda aad iyo aad baad mahadsantihiin soo waan dhawahay magacaaga magacayga waxa la Fuad فأنا واحد عالم كي جمهورية بركيسان سومالان dadku waxay soo diyaar garoobaan xuska sanad guurada qaran ee 18 May bal adi ahaantaada soo ugu diyaar garowday wallahi si wanaagsan ugu diyaar garoobay sanadkan aad iyo aad waxaan leeyahay dadkana waa ciid mubaarak ku soo dhawaada 18 May
dhalinyarada ama dadka talentii bay la soo baxayeen baryahan dambe oo suuqa ku jiray mid suuxa mid erey yar dhahaa oo qarxa bal adiguna ereygaaga aad ku soo dhaweynayso bal wax nooga taataabo maxaa ku diyaarsan aniga waxa ii diyaarsan inaa calanka kor loo qaado oo maalinta la weyneeyo oo shacabku ku soo baxaan dhammaantood aad baad mahadsantahay